Buundooyinka waa kuwo inoo sahla inaan ku gudubno webiyada dushooda iyo meelaha biyaha leh, balse qaar ka mid ah injineerada ayaa u istaagay inay dhisaan buundooyin qurux badan oo la yaab leh. Maanta waxaan idiin wadaa 10 buundo ugu quruxda badan caalamka, kuwaasi oo ah kuwa aad ka heli doonto marka aad daawato fiidiyowga. Fadlan dhammayso fiidiyowga oo nala soco ilaa iyo dhammaad. Buundada Henderson waa buundo gaaraysa dhererkeeda 270 mitir, iyadoo ka sarreysa joogga badda 36 mitir. Buundadani waxay u samaysan tahay qaab xirfadaysan oo qurux badan, taas oo ah mid indhaha soo jiidanaysa. Waxayna dhacdaa buundadani Singapore, waxayna isku xirtaa beerta Faber iyo mandiqada Balanka Khayl. Buundada Multnomah. Marka aad joogto buundadani, waxaa suurtagal ah inaad aragto meel biyo-hoobaad ka kooban 2 qaybood. Midda koowaad waxay gaaraysaa dhererkeeda 165 mitir, qaybta labaadna waxay gaaraysaa dhererkeeda 21 mitir. Waxay dhacdaa buundadani goob buuraley wada cagaar ah iyo biyo-dhacdooyin qurux badan naftu ku raaxaysanayso. Taasi waa midda ka dhigaysa inaad soo booqato hal marba ha ahaatee. Laakiin haddii aad doonayso in aad soo booqato, waxaa waajib kugu ah inaad lugayso masaafo dhan 2 kiiloomitir. Buundada Shaydaanka. Waxayna soo ifbaxday buundadani sanadii 1862, waxayna dhacdaa gudaha beerta Roterto Netro ee Albania. Haddii ay kuu suurto gasho tigidda meeshani waqtiga dayrta ah, waxaad arki doontaa geedo qurux badan oo isku dhafan iyo kuwo kala tagsan. Waa haddii aad aado Albania. Buundada Bastay waa buundo ku taalla buuraleyda waddanka Albania, waxayna gaaraysaa dhererkeeda 190 mitir ee webiga Alba korkiisa. Mandiqadan waxay ahayd meel ku fiican dalxiiska muddo ka badan 100 sano, laakiin sanadii 1824 ayaa waxay noqotay mid baaliyowday barafka ku da'ay darteed. Laakiin 30 sano kadib ayaa la hagaajiyay, waxayna noqotay meel soo jiidasho leh oo ku habboon dalxiiska. Buundada Cusub waa mid ka mid ah raadadka ugu quruxda badan magaalada Rondo. Qofka aan aqoon, Rondo waxay dhacdaa koonfurta Isbaaniya. Waxay bilaabatay dhismaheedu sanadihii 1751 ilaa 1793. Waxay gaaraysaa ballaceeda 100 mitir. Buundada Kaantaay. Waxaa lagu tiriyaa buundadani inay tahay mid ka mid ah buundooyinka khasabka ah ee ugu caansan dalka Jabbaan, waxaana la dhisay 1673. Waxayna ka kooban tahay 5 qayb, midba kale ay ku xiran tahay. Waxayna dhacdaa webiga Naaska korkiisa ee buurta Shokoyama. Waxaa lagu tiriyaa inay tahay meelaha dalxiiska ugu quruxda badan mandiqada, gaar ahaan xilliga guga markaas oo soo baxo ubaxa karaaska. Buundada Dahabka. Waxay dhacdaa buundadani hareeraha danaanka ee waddanka Vietnam, waxaana imaada kumanaan dalxiisayaal ah si ay u arkaan quruxda muuqata. Waxayna dhacdaa masaafo 1400 mitir ah heerka badda, wuxuu gaarayaa dhererkeeda 150 mitir. Gacmaha aad u moodo inay hayaan buundadani waxaa laga sameeyay maar iyo waxyaabo kale oo isku daray, waxayna u muuqataa sidii dhagaxii oo waxa lagu qurxiyay shamiinti iyo wax la mid ah. Buundada Lankowski. Waxay tahay buundo qaas u ah socdaalka. Waxay gaaraysaa dhererkeeda 125 mitir, waxaana la furay sanadii 2005. Waxayna dhacdaa masaafo 125 mitir ah heerka badda, waxayna isku xirtaa 2 jabal oo muhiim u ah mandiqadan. Waxaa la mamnuucay in la socdo sanadii 2012 shilal dhacay darteed, waxaana la furay sanadii 2015. Hadda waa caadi oo way shaqaysaa, waana goob qurux badan run ahaantii. Way ku cajiib gelin doontaa marka aad soo booqato. Buundada Golden Gate. Waxay dhacdaa buundadani xeebta galbeed ee waddanka Mareykanka ee magaalada San Francisco. Waxaana la dhisay sanadii 1973, waana meel aad u qurux badan, dalxiisayaashuna ay jecel yihiin.
waa inaad inoo soo gudbisataa wada fikirkaaga iyo midda kula qurxanaatay. fadlan waan tixgelin doonaa fikradiina iyo kommentiyaashiina. mahadsanidin.